Maanta waxaan ka baqaynaa inaan weyno shay muhiim ah. Waa shay meel walba iska yaallo, waxyaabo badan ku samaysano. Shaygu muhiimka ah waa carrada. Haddii aad is leedahay macquul ma aha in carrada la waayo, waad qaldan tahay. Haddii aad is leedahay waxaas waa iska caadi, wax aan kuu sheego. Sanadkii waxaan isticmaalnaa 50 bilyan oo tan oo carro ah. Miraayadaha ayaa ku samaysanaa, iyo dhalooyinka, iyo waxyaabaha kombiyuutarka lagu talagalay, iyo telefishinada. Midda kale waxaan ku dhisannaa guryaha. Sanad walba waxaa loo baahan yahay carro badan. Si loo helo carradaas badan, waxaa jiro dalal badan carradaas u baahan oo aanan haysanin. Micnaha dhulkoodii waa buuro. Marka carradaas ay u baahan yihiin, waxay ka soo qaataan dalal kale sida xeebaha dalalka Afrika. Xeebtana haddii laga qaado carro badan, biyaha badda ayaa soo fakanayo. Taasna waa dhibaato. Dhibaato kale ayaa jirto oo lagu magacaabo maafiyada carrada. Waa waddamo qaar oo ka soo qaato carro dalal kale xisaab la'aan iyo qiyaas la'aan. Mana isticmaalaan carradaas, balse way gataan. Waddamada u baahan carradaas ayay ugu gataan suuqa madow. Micnaha canshuur la'aan. Sanad walbana waxa ay ka helaan $2 bilyan. Waddamada qaar carrada waa ay samaystaan, buuraha ayay jebiyaan, kadib way shiidaan. Inkastoo lacag badan ku baxdo qaabkaas, ma laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah in carradu ka qiimo badato shidaalka? Fikirkaaga ku soo qor kommentiga.